nebi muuse oo aada u cabsanaya ayaa u degdegay sidii uu u baxsan lahaa, weligiina kama uu bixin magaalada oo ma garanayo meel uu qabto. sidaa awgeed ayuu ilaahay u tala saartay, oo inta uu waddo raacay ayuu yidhi, waxaa laga yaabaa in uu ilaahay igu hanuuniyo waddada toosan. muddo 8 cisho ayaa muuse marayay saxaraha isagoo oo aan helin biyo iyo cunto toona. waxaa ka darnayd in ay kabihii ka go-een, kadibna uu cagacadaan lugeeyey. waxoogaa markii uu socdayna haraggii ayaa lugaha ka dhacay oo ka dhammaaday, kadibna inta uu maradiisii qayb ka mid ah jeexay ayaa uu ku xidhay lugihii. muuse gaajo darteed waxa uu cunayay caleenta dhirta. ibnu cabbaasna waxa uu sheegay in uu muuse madyan yimi isagoo oo ay midabka dibnihiisu u ekaadeen caleenta ama ay noqdeen midabka doogada sidii uu caleenta u cunayay. 8 cisho oo uu soconayay kadib waxa uu muuse kusoo baxay meel ceel ah oo ay dad xoolo ka waraabsanayaan. dadkaas waxaa ka mid ahaa 2 hablood oo iyagu adhiga aan waraabinayn, meel koona ahna taagnaa. xoolahooduna haraadka haya dartood marba ay kusoo cararayeen darka oo ay dhex gelayaan xoolaha dadka kale, iyaguna marba ay celcelinayaan oo ay la dhiban yihiin. cado waxaa ummadaas u ahayd adhiga in ay raggu raacaan, gaar ahaanna marka la waraabinayo waxaa dhaqan u ahayd in ay niman waraabiyaan. nebi muuse inta uu yimi ayuu weydiiyey sababta ay xoolaha u waraabin waayeen, iyana waxa ay u sheegeen in aanay waraabin karin ilaa ay dadka kale fulaan mooye ee iyaga oo ka xishoonayay in ay ragga dhex galaan. waxa kale oo uu muuse weydiiyey sababta ay iyaga oo dumar ah xoolaha u soo kaxeeyeen, kadibna waxa ay u sheegeen in uu aabahood yahay oday weyn oo waayeel ah, kaas oo aan awoodin in uu arooriyo xoolaha. dadkani xoolaha marka ay waraabsadaan waxa ay ceelka kusii dabooli jireen dhagax weyn oo 10 nin ay wada qaadi jirtay. wadaamo waaweynna waa lagaga dhaamin jiray ceelka. sidaa awgeed 2dan hablood uma ay suurto geli jirin in ay biyo nadiif ah xoolahooda siiyaan, waxaana ay ka waraabin jireen hambadii iyo ustagii ay xoolahii kale ka tageen. nebi muuse keligii ayaa dhagixii ceelka ka qaaday, kadibna hablihii ayaa uu u waraabiyey adhigii. markii uu waraabintii dhammeeyeyna inta uu dhagixii ceelka ku daboolay ayuu hoos seexday geed aan ceelka kaba fogeyn. inkastoo culimada taariikhda qaar ka mid ay sheegaan in uu ahaa nin saalix ah oo ka hadhay qoomkii Shucayb, kuwo kalena ay ku doodaan in uu ahaa nin ay qaraabo ahaayeen nebi Shucayb. waxa uu aad ula yaabay hablihiisii oo u yimi waqti aan looga baran. maalmihii hore marka ay adhiga arooriyeen xilli dambe ayay iman jireen, laakiinse maanta way soo dheereeyeen. sidaa awgeed ayuu u weydiiyey maanta waxa isbedelay ee goor hore keenay. mid ka mid ah 2diisii hablood ayaa uga warrantay ninkii caawiyey ee adhiga u waraabiyey. sidoo kalena waxay aabaheed u sheegtay in uu ahaa nin qariib ah oo daal iyo gaajo ay ka muuqatay. Shucayb mid ka mid ah hablihiisii ayaa uu soo diray muuse si ay ugu yeedho, kadibna iyada oo si xishood ku jira u soconaysa ayay u timi oo u sheegtay in uu aabaheed u yeedhayo si uu u abaalmariyo. muusena wuu ka ogolaaday oo wuu soo raacay. inantii waa ay horgashay muuse, isna wuu dabagalay, kadibna waxaa soo dhacday dabayl oo waxoogaa maradii ayay ka fayday. sidaa awgeed ayuu muuse inantii u sheegay in isagu uu horgelayo, waxaana uu ku amray in ay iyadu daba gasho. sidoo kalena waxa uu sheegay haddii uu waddo qaldan maro in ay saxdo, weliba iyada oo aan la hadlin ay dhagax ugu tuurto jihada saxda ah. markii uu nebi muuse u yimid nebi Shucayb waa uu soo dhoweeyey, waxaana uu siiyey cunto iyo cabitaan, kadibna waa uu waraysay. muuse waxa uu uga sheekeeyey qisadii iyo sidii ay wax u dhaceen. kadibna Shucayb oo u laabqaboojinaya muuse ayaa u sheegay in uu niyadda dejisto, sababta oo ah waxa uu yimi dhul aamin ah oo aanu fircoon ka talin soona gaari karin. mid ka mid ah hablihii uu Shucayb dhalay ayaa aabaheed ku tidhi, aabbo ninkan shaqaalaysii, maxaa yeelay qof la shaqaalaysiiyo waxaa ugu wanaagsan kan xoogga weyn leh aaminkana ah. Shucayb waxa uu inantiisii weydiiyey sida ay ku aragtay inuu xoog weyn yahay, aaminna uu yahay, waxaana ay u sheegtay inuu keligii qaaday dhagax ay 10 nin qaadi jireen. sidoo kalena markii ay u yeedhaysayna uu ku amray in ay daba socoto, isaguna uu ka hormaro. Shucayb waxa uu ku soo noqday muuse, waxaana uu u soo bandhigay in uu 7 sano u raaco adhiga, isna uu ku abaalmariyo oo uu u guuriyo 2diisan hablood mid ka mid ah. muusena arrintii wuu ka ogolaaday, sidaas ayuuna uga badbaaday fircoon iyo dhagartiisii. nebi muuse isagoo oo 30 jir ah ayaa uu madyan yimi. intii la nuujinayay mooye ee muddada kale waxa uu ku noolaa qasriga fircoon. muuse 10 sano ayuu Shucayb u raacayay adhiga, waxaana ay da'diisu noqotay 40 jir, waana cimriga inta badan rususha lagu soo saari jiray.
sidoo kalena dastuurka Masar waxaa la sheegaa in uu dhigayay in qofka muddadii uu dilka geystay haddii ay 10 sano kasoo wareegto uu cafis yahay oo aan dembigii loo qaadayn. Muuse markii uu ballantii dhameeyay, Shucaybna uu 10 sano ariga u raacayay, 10 sano oo kala ahaa 7 sano oo ay ku ballameen iyo 3 sano oo ugu daray, ayaa waxa uu Muuse u xisooday ehelkiisii, waxaana uu jeclaaday in uu si qarsoodi ah Masar ku galo. Shucayb ayaa Muuse ku yidhi, waxaan ku siinayaa xoolahayga inta sanadkan dhalanaysa ee aan lahayn midabka madow. nasiib wanaagna dhammaan xoolihii dhashay waxa ay noqdeen kuwa aan lahayn midab madow. sidaas ayaana uu Muuse ku hantiyay xoolo fara badan, waxaana uu soo kaxaystay gabadhiisii iyo xoolihiisii. muddo markii ay soo socdeen ayaa uu gabalkii u dhacay, waxaana soo dhacday dhaxan iyo dabayl qabow. kaaga daranta ee habeenkaas dayax ma uusan jirin oo waxa ay ahayd gudcur maagangooya ah. nasiib darra Muuse iyo ehelkiisii waxa ay ka ambadeen wadadii saxda ahayd, waxaana isugu darsamay madow habeennimo iyo dhaxantii dhacaysay iyo waliba iyagoo wadadii ka ambaday. Muuse ayaa buur galbeedka ka xigtay, waxa uu ku arkay Ilays ka baxaya, waxaana uu ehelkiisii ku yidhi, iftiin ayaa ii muuqda oo waa aan u tegayaa, waxaana suurtagal ah in aan kasoo helo cid ina saxda ama aan ugu yaraan inooga soo qaado dab aynu kulaallo. waxaana uu ku amray Muuse ehelkiisii in ay sii sugaan. sidii uu Muuse moodayay way noqon weyday, Ilayskii u baxayna dab waa uu ka weynaaday, waxa uu ahaa nuur ka baxaya geed dooga ah oo ilaa samada ishaysta, taas oo ahayd mucjiso rabbaaniya. aad ayuu ula yaabay Muuse, baqdinina waa ay gashay, waxaana uu maqlay cod leh, anigu waxa aan ahay Ilaahaagii, Rabbiga wax dila waxna nooleeya, waxa aad joogtaa webigii barakaysnaa, bixi Muuse kabahaaga. Muuse baqdintii ayaa kusii siyaaday, degdegna waa uu u bixiyay kabihii. markaas buu haddana maqlay isla codkii cajiibka ahaa ee ka imanayay dhammaan jihooyinka oo dhan, waxaana markan lagu yidhi, waa maxay Muuse waxa aad gacanta ku haysaa? Muuse oo markii magaciisa loogu yeedhay aada u sii cabsaday ayaa yidhi, waa u shaydii oo waxa aan ugu buliyaa xoolahayga, howlo kalena waa aan ku qabsadaa. tuur Muuse ushaadaas, ayuu Ilaahay ku yidhi. dabadeed si degdeg ah ayaa uu u fuliyay amarkii Ilaahay. markii uu sidaa u tuurana waxa ay noqotay mas aad iyo aad u weyn oo argagax leh, maskaas oo dhaqdhaqaaqayo soconaya. dabeecadda basharka waxaa ka mid ah inuu qofku cabsado marka uu arko mucjiso ku cusub. Muusena aad ayuu u cabsaday oo wuu cararay isagoo aan dib soo eegeen. isla markiiba Ilaahay ayaa la hadlay oo ku yidhi, ha baqanin Muusow, waxa aad ka mid tahay kuwa aaminka ahee. markaas ayuu Muuse soo joogsaday. Ilaahayna waxa uu ku amray in uu maska soo qabto, waxaana uu u ballan qaaday in uu dib ugu soo celin doono ushiisii. Muuse oo aad u cabsanaya ayaa maskii soo qabtay, isla sudhii ay gacmihiisu gaadheenna waxa ay isku bedeshay ushiisii caadiga ahayd. waxa kale oo uu Ilaahay ku amray inuu gacantiisa geliyo jeebkiisa. markii uu geliyena waxa uu ka soo saaray iyada oo aad u nuuraysa oo sida dayaxa oo kale u ifaysa. Ilaahay waxa uu Muuse u diray Fircawn iyo qowmkiisii, oo waxa uu ku yidhi, u tag Muuse Fircawn iyo qowmkiisa oo waxa aad u sheegtaa in aad tahay rasuul uu Ilaahay u soo diray, waxaana aad ku tidhaahdaa hadal dabacsan. laga yaabaa in uu ku waantoobe. labadan mucjisana waa aayado burhaan ah oo u caddaynaya in aad tahay xaq, dhambaalkan aad sidaana uu yahay mid dhab ah. Muuse waxa uu Ilaahay u sheegay inuu ka cabsanayo maadaama oo uu ninka dilay, waxaana uu Ilaahay u damaanad qaaday ammaankiisa iyo badbaadintiisaba. sidoo kalena Muuse waxa uu Ilaahay ka codsaday in uu ku daro walaalkii Haaruun, maxaa yeelay isaga ayaa ka cod karsanaa. oo waxaa la sheegaa in berigii uu Muuse yaraa maalin garhka uu si xun u jeeday Fircawn. Fircawnna aad ayuu u cadhooday, waana uu baasaystay ficilkii uu sameeyey Muuse, waxaana uu isku dayay in uu dilaba, oo waxa ka hor joogsatay xaaskiisii oo Fircawn u sheegtay in uu Muuse yahay dhalaan aan waxba kala garanayn. si ay xujadeeda u sii xoojisana waxay Aasiya u sheegtay odaygeedii Fircawn in haddii timir iyo dab la isku barbar dhigo aanu Muuse kala garanayn kan faa'iidada u leh. Fircawn oo aynu caqli xumadiisa wada naqaano, waxa uu go'aamiyey in la soo qaado dhuxul dab ah iyo dhowr xabo oo timir ah, waxaana uu Fircawn hubinayay caqliga Muuse iyo gadhkii uu sida cadowtinimada la u jiiday in ay ka tahay ogaan iyo in kale. markii Muuse oo caruur ah la isku soo barbardhigay dhuxushii iyo timirtii, waxa uu soo qabsaday dabkii oo si dhaqso leh ayuu afka u geliyay. nasiib darro waxaa carabka kasoo gaadhay dhaawac, kaas oo keentay in ilaa weynaantiisii uu noqdo qof aan si wanaagsan u hadli karin, oo badanaa waxa uu isku khaldi jiray ereyada.
tusaale ahaan isagoo oo ujeeda inuu yidhaahdo xarafka xa ayuu ku dhawaaqi jiray xarafka ta. fircawnna markaas ayuu ogaaday inuu muuse yahay caruur aan weli kala baran khatarta iyo badbaadada. taarikhyahanada qaar ayaa sheegay in aanay arrintu ahayn sidaas, waxaana ay ku doodaan maadaama oo muuse 30 sano ku noolaa qasriga fircawn uma ay suurtogelin inuu luuqadda yuhuudda aada u barto. waxaase ay xaqiiqadu u dhowdahay qisada hore, oo haddii uu muuse luuqadda faraacinada si fiican ugu hadli yaqaanay ama ugu hadli jiray, fircawn kuma uu caayeen agnaannimadiisa. muuse markii uu yimi waxa uu walaalkii haaruun u sheegay inuu ilaahay u doortay in ay nebiye noqdaan oo ay fircawn soo waaniyaan. kadibna si halkahaaleel ah ayay u baxeen, waxaana ay aadeen qasrigii uu fircawn deganaa. markii ay qasrigii yimaadeen ayuu muuse u sheegay ilaaladii qasriga in ay albaabka ka furaan ama ay fircawn u sheegaan inuu rasuulkii ilaahay usoo diray dibadda u taagan yahay oo uu sugayo in loo ogolaado soo gelitaanka qasriga. nimankii inta ay ku jeesjeeseen muuse iyo haaruun ayay labadii arrinba diideen oo albaabkiina kama aysan furan, warkoodiina fircawn ma ay gaadhsiin. muddo badan ayuu muuse dibadda taagnaa. culimmada qaarkoodna waxa ay sheegaan in ay 2 sano gaadhaysay muddadii ay kusoo noqnoqon jireen albaabka qasriga fircawn si looga furo, sababta oo ah ma uusan sii marin cid madax ah oo u fududaysa gelitaanka qasriga. taarikhyahanada qaar ka mid ah ayaa iyaguna sheegay inuu muuse ushiisii ku dhuftay albaabka, kadibna uu albaabkii 2 kala noqday. markii uu fircawn warkii gaadhayna uu u yeedhay, halkaas oo uu kulankoodii koobaad ka dhacay. ilaahayse ayaa xaqiiqada og. muuse iyo walaalkii haaruun waxa ay u yimaadeen fircawn. ugu horreyntiiba waxa ay u sheegeen in ay yihiin ergooyin uu usoo diray ilaahay, waxaana ay ku waaniyeen cabsida ilaahay. sidoo kalena waxa ay ka codsadeen inuu reer banu israa'iil ka dulqaado gumaysigii uu ku hayay, una fasaxo si ay u helaan xorriyad ballaadhan oo ay ku cibaadaystaan, danahoodana ay ku qabsadaan. fircawn inta uu carooday ayuu giiris ka kiciyey. waxa uu muuse xasuusiyey in uu isaga oo taag daran helay, gurigiisana uu kusoo koriyey. sidoo kale waxa uu muuse ku aflagaadeeyey in aanu aqoon sida loo hadlo. waxa kale uu ku caayay maryaha uu xidhan yahay oo aan ahayn kuwa ay gashadaan dadka dabaqada sare ahi. sidoo kalena fircawn waxa uu weydiiyey muuse waxa uu yahay rabbiga kownkan lihi. muusena waxa uu u sheegay awoodda iyo quwadda ilaahay. dabadeedna inta uu kusoo jeestay wasiiradiisii ayuu fircawn ku yidhi, waryaadhaheen, ilaah aan aniga ahayn miya taqaaniin? fircawn isaga oo aada u cadhaysan kibirna sanka la taagaya ayuu ugu hanjabay muuse haddii uu sheego ama uu mar dambe ka maqlo inuu jiro ilaah aan isaga ahayni inuu jeelka ku xidhayo. muusena waxa uu ku yidhi, oo ma ku tusaa mucjisooyin caddaynaya in aan ahay rasuul uu ilaahay kuusoo diray? waxaana uu fircawn ku yidhi haa. kadibna ushiisii ayuu muuse tuuray, waxaana ay noqotay mas weyn oo muuqaalkiisu argagax leeyahay. maskii aad ayuu u miliqsanayay oo wuu xamaaranayay, taas oo cabsi weyn ku riday fircawn iyo wasiiradiisii. waxa kale oo uu muuse jeebkiisii geliyey gacantiisii, waxaana ay soo baxday iyada oo ifaysa ilaa uu nuurkeedii qasriga oo dhan wadayleeyey. fircawn tala ayaa ku caddaatay, waxaana uu bilaabay xaalad abuur iyo in uu inkiro aayaadkii caddaa ee uu arkayay. waxa uu muuse ku sheegay inuu yahay sixiroole raba dhulka inuu faal kula wareego, waxaana uu sheegay inuu la gurin doono oo uu maalinta ciidda ah isugu yeedhi doono dhammaan falaloolayaasha iyo sixiroolayaasha, kadibna la eegi doono iyaga iyo muuse kooda badiya. muusena arrintii waa uu soo dhaweeyey, waxaana la ballamay maalintii ay ahayd iidoodii. fircawn waxa uu soo ururiyey dhammaan dadkii sixirka yaqaanay intoodii ugu xariifsanayd. berigaana sixiroolayaashu aada ayay masar ugu badnaayeen, oo culimmada taariikhda qaar ka mid ayaa sheegay in saxaradii la isku keenay ay gaadhayeen 12,000 oo falalow. ibnu cabaasna waxa uu sheegay warkaas ka dhow oo ah in ay gaadhayeen sixiroolayaasha kuwoodii ugu xariifsanaa ee lasoo xushay 70 saaxir. waxaana uu fircawn u ballanqaaday haddii ay muuse ka guulaystaan in uu abaalmarin fiican siin doono. waxaa la gaadhay maalintii ciidda. waxaa yimi dadkii oo dhan oo soo daawasho tegay. waxa kale oo yimi fircawn sixiroolayaashii iyo muuse iyo haaruun. muuse waxa uu waaniyey sixiroolayaashii, waxaana uu u sheegay dembiga ay gacmaha kula jiraan iyo sida ay ugu furan tahay toobatu. sixiroolayaashii ayaa murmay oo qaar ka mid ahi waxay ku doodeen hadalkani in aanu ahayn hadal sixiroole ee uu yahay hadal rasuul. kuwo kalena waxa ay ku adkaysteen in uu saaxir yahay. waxa kale oo la sheegaa in uu jibriil muuse ku yidhi, muusew si wanaagsan ula hadal sixiroolayaasha, maxaa yeelay galabtaba jannada ayay ku jiraan. arrintaas oo muuse aada ula yaabay.
waxaa la gaaray waqtigii la bilaabi lahaa, waxaana ay sixiroolayaashii muuse ku yidhaahdeen, ma adiga ayaa bilaabaya oo tuuraya ushaada bise annaga? muusena waxa uu ku yidhi, idinku bilaaba. kadibna xadhkahoodii ayay dhulka ku tuureen. sixiroolayaashii waxa ay indhasarcaadiyeen indhihii bulshada, xadhkahoodii oo dhulka daadsanna waxa ay dadkii u tusiyeen ama ay dadkii ugu muuqdeen masas dhaqdhaqaaqaya. kadibna muuse ayaa isna ushiisii tuuray, markaas ayaa ay noqotay mas weyn oo kuwoodii ka wada weyn, qaabkiisa iyo qaradiisana aada looga cabsanayo, kaas oo lahaa qoor dheer una samaysnaa si uu ilaahay u garanayo. dadkii aada ayay u cabsadeen, badhkoodna waa ayaan, intii kalena dib ayaa ay u gurteen maskii muuse. isagoo oo cartamaya ayaa uu u dhaqaaqay dhankii ay ka xigeen masaskii saxaradu, kadibna midhmidh ayaa uu u cunay oo u liqay ilaayo ay ka dhammaadeen. sixiroolayaashii waxa ay arkeen arrintani in aanay sixir ahayn ee ay tahay nebinimo. mar qurana inta ay wada sujuudeen ayay yidhaahdeen, waxaanu rumaynay ilaaha muuse iyo haaruun. ibnu cabbaas waxa uu sheegay in markii ay sujuudeen la tusay qasriyadii iyo guryihii ay jannada ku lahaayeen, sidaa awgeedna ay ugu dulqaateen hanjabaadii iyo ciqaabtii la mariyey. waxaana uu fircoon noqday ninkii ugu horreeyey ee dad ka jaray gacan iyo lug isdhaaf ah, oo waxa uu sidaa u ciqaabay sixiroolayaashii ilaa ay ka shahiideen. waxaa ku dhacday fircoon guuldarrooyin waaweyn, waxaana laga guulaystay sixiroolayaashiisii ugu cilmiga badnaa. sidoo kalena sixiroolayaashii ayaaba rumeeyey muuse. kasi daranta ee waxa ay ku rumeeyeen madal ay ilyartu isqabatay oo ay ummaduba wada joogaan. xariif uu fircoon ku ahaa xaalad abuurka iyo khalkhalgelinta caqliga rayidkiisa ee kolkiiba arrintii meel kale ayuu u duway. waxa uu ogaa fircoon in ay dadku xasuusan yihiin hogsooskii sogolootiga ahaa ee dhibay bulshada, kuwaas oo ay dadku aada u necbaayeen. oo waxa uu dadkii u sheegay inuu muuse yahay saaxiib ama falalow raba inuu dhulka kula wareego sixirkiisa. waxaa kale oo fircoon sixiroolayaashii ku sheegay in ay yihiin kuwa mu'aamarad dhigaya oo raba dalka in ay sixirkooda ku qabsadaan. muusena uu yahay macalinkoodii weynaa ee baray sixirkaba. arrintaasna ay ku wada sodeen. fircoon waxa uu sixiroolayaashii ugu hanjabay inuu ku xidhi doono geedka timirta ah, kadibna uu jari doono lug iyo gacan isdhaaf ah, geedkaasna ay kasoo laalaadi doonaan si loogu cibro qaato. waxaana uu siiyey jaanis ay cafis ku weydiisan karaan oo ay kaga noqon karaan diintii ay rumeeyeen, waana ay ka diideen sixiroolayaashii. fircoon hanjabaadii ayuu kaga dhabeeyey, waxaana uu laayay sixiroolayaashii oo subixii horeba waxa ay gacmaha kula jireen ficil gaalnimo ah, laguna mutaysan karo naar. galabnimadiina waxa ay ahaayeen ehlu janno. fircoon iyo qoomkiisii markii ay diideen dacwadii iyo fariintii nebi muuse, waxa uu ilaahay ku riday abaar sanado badan haysay, taas oo sababtay in ay waayaan dalagii beeraha uga soo go'i jiray. gaajo iyo macluul badanina way heshay. faraacinadu waxa ay caado u lahaayeen in ay dusha muuse ka saaraan waxa xun ee ku dhaca, waana ay ka baasaysan jireen. markasta ay wax wanaagsan helaan waxa ay u arki jireen in ay iyagu kasbadeen. abaartii baanayd kadib ilaahay waxa uu ku sara kiciyey roobab waaweyn iyo duufaano wata daadad badan, kuwaas oo baabiyey dalagii iyo sariicii ay beerteen. waxaana ay fircoon iyo wasiiradiisu u yeedheen muuse iyagoo oo ka codsanaya inuu dhibtan haysata ka kor qaado. haddii uu sidaas sameeyana waxa uu fircoon u ballan qaaday inuu rumaynayo, sidoo kalena reer banu israa'iil u fasaxayo. markii uu nebi muuse ilaahay u baryey, ilaahayna uu ka kor qaaday, ayuu wacadkii furay fircoon oo kusii madax adeegay gaalnimadiisii. ilaahayna waxa uu ku salliday ayax cunay dhammaan saricii ay beerteen. markii uu mariyeyna ilkaha ula tegay guryahoodii iyo masaabiirtii ay ku adkeeyeen, taas oo baday hoyla-aan. markii uu nebi muuse ilaahay u baryey, ilaahayna uu ka kor qaaday, ayay wacadkii fureen fircoon iyo qoomkiisii oo kusii madax adeegoon gaalnimadoodii. ilaahayna waxa uu ku salliday ayax cunay dhammaan saricii ay beerteen. markii uu mariyeyna ilkaha ula tegay guryahoodii iyo masaabiirtii ay ku adkeeyeen, taas oo baday hoyla-aan. faraacinadii waxa ay xamili waayeen dhibkii, waxa ay u yimaadeen muuse oo sidii markii hore oo kale ayay ka codsadeen inuu dhibta ka kor qaado, iyana ay markaas soo islaamayaan. nebi muuse waxa uu la hadlay ilaahay, waana uu ka kor qaaday eebbe ayaxii. ballantii waa ay jabiyeen oo gaalnimadoodii ayay kusii madax adeegeen. ilaahay waxa uu haddana kusoo rogay ciqaab kale, waxaana uu ku saro kiciyey in jir gashay guryahoodii, maryahoodii iyo timahoodii, taas oo jiif iyo joogba u diiday. markii ay ku dhibtoodeen ayay haddana fircoon iyo wasiiradiisii u yeedheen muuse oo ku yidhaahdeen si lamid ah sidii markii hore, ballantiina ay u qaadeen. nasiib darase isla kolkii laga fayday ayay kufrigoodii kusii madax adeegeen, muusena ku sheegeen inuu yahay sixiroolo raba in uu dhulka kala wareego. mar kale ayuu haddana ilaahay ciqaab kale kusoo rogay, waxaana uu ku salliday rah,
kaas oo biyaha weelka maryaha cuntada iyo guryahoodaba buuxdhaafiyey, waxaana ay ka waayeen jaanis oo xataa hadday is yidhaahdaan biyo cabba waxay arkayeen rahaas oo qaar ka mid ah afkoodii sii gelayo. faraacinadii waxa ay haddana kusoo noqdeen muuse oo waxa ay ku yidhaahdeen hadaladii caadada u ahaa. markii laga kor qaadayna waxa ay sii laba jibaareenba dhaga adeegoodii. ilaahay cadaab kale ayuu kusoo rogay oo waxa uu biyahoodii oo dhan u bedelay dhiig, taas oo kii is yidhaahda cab ama ku fooldhaqada ay dhiig ku noqonayeen. sidoo kalena webigii niil ee biyihiisa ay ku nooleeyeen ayaa isna gebi ahaantiisba dhiig isku bedelay. waxa ay ciqaabtani ku riday argagax, waxaana ay u yimaadeen muuse oo sidii markii horeba u qaadeen ballan. markii uu ilaahay ka kor qaadayna si lamid ah sidii ay yeeli jireen ayay faleen oo diintoodii ayay kusii nagaadeen. waxa uu ilaahay tusay fircoon iyo qoomkiisa aayado kala duwan oo mid kastaa markhaati ka tahay jiritaankiisa iyo weynidiisaba, waase ay beeniyeen oo rasuulkii loo soo dirayna waa ay u hanjabeen. nebi muuse qudhiisii markii uu ka quustay ee uu ka niyad jabay ayuu eebbe u weydiiyey inuu cadaabo, waana uu habaaray. ilaahayna waa uu ka aqbalay habaarkii. dadkii reer masar ee qibdiyiinta ahaa waxa ay ka madax adeegeen dacwadii iyo diintii nebi muuse, waxaana la sheegaa in ay gebigoodaba ka islaameen 3 qof oo keliya, kuwaas oo kale ahaa marwadii uu fircoon qabay ee aasiya, ninkii wasiirka ahaa ee markii uu fircoon rabay in uu dilo muuse la doodayay, iyo kii markii uu muuse ninka dilay isagoo oo ordaya u yimi ee u sheegay muuse in la doondoonayo, kulana taliyay inuu magaalada ka baxo. sidoo kalena dhammaan qibdiyiintii oo uu fircoon horkacaya waxaa isku kaalmaysteen dhibka nebi muuse. nebi muuse iyo reer banu israa'iilba waxaa loo dhibay si adag, waxaa laga laayay ubadkoodii gaar ahaana wiilashoodii, waxaana ay gaadheen heer ay reer banu israa'iil marka uu muuse wacdiyaba ay ku yidhaahdaan war naga tag muusow, markii aada noo timi ayuu dhibkaniba nagu sii siyaadiyey. reer banu israa'iil iyo muuseba waxa ay noqdeen tuko baalcad, dhammaan masaaridiina meel ayay uga soo wada jeesteen oo dhibaatayntoodii iyo aflagaadoyntoodiiba waaba lagu dhiiraday. fircoonna arrintaas dabada ayaa uu ka riixayay. xaalad qadhaadh iyo jawi adag ayaa soo wajahay reer banu israa'iil. nebi muuse waxa uu sugayay farajkii ilaahay. dhibka ay fircoon iyo qoomkiisu ku hayeen mid la mid ah waxa ku hayay reer banu israa'iil. way ku dhaga hadlayaan, waxa ay u sheegayaan markii uu yimi inuu dhibkii ku siyaaday. muuse waxa uu sugayay amarka ilaahay, ilaahayna waxauu ku amray in ay guryahooda qiblooyin u sameeyaan oo ay ku tukadaan. culimada qaar ka mid a ayaa sheegay in aanay reer banu israa'iil awood u lahaan jirin in ay muujisaan cibaadadooda, sidaa awgeedna loo amray in ay guryahooda ku tukadaan, masaajidana ka samaystaan. kuwo kale ayaa iyana sheegay in markii uu dhibku ku batay reer banu israa'iil lagu amray in ay u yaacaan xagga ilaahay oo ay la yimaadaan salaad iyo cibaado fara badan si uu ilaahay nasri iyo guul ugu soo rogo. qaar kale ayaa sheegay in qibladaas loola jeedo guryihiina u samaysta si gooni ah oo ka duwan qaabkii ay masaaridu u dhisan jireen guryaha, taas oo noqonaysa astaan ay isku aqoonsadaan reer banu israa'iil. marka la amro in ay baxaanna si fudud ay isugu wargelin karaan.